Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan dhammaan saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran barteena YouTube-ka Nuur Boos. Awalan waxaan idin leenahay halku dhigeeni ahay tabcade ayaa tanaada. Haddii aa hore inoola joogtay waxaan ku haynaa xushmad iyo qadarin. Waan kaaga mahad celineynaa waqtigaaga qiimaha badan ee aadna siisana mar walba. Haddii aad nagu cusub tahana fadlan subscribe, like-ta iyo share-ta, commentiga waa inoo dhiirigelin. Intaas waa cusbada iyo xawaajiga iyo intii lagu qurxin lahaa YouTube-kan waay iyo dhiirigelinteena. Intaas kadib caawa waxaan inoo wadaa fursadda ka banaan xeebta baaxadda weyn leh uu Rabbi subxaanahu wa tacaala inagu maneystay iyo dhallinyaradeena sida ay uga gaajaysan yihiin ama shaqo la'aanta ay ugu yihiin. Runtii arrin nasiib darro ah oo aad iyo aad weliba nasiib darro u ah. Waxaan rabaa intii aanan u gudagelin falanqaynta iyo waxyaabaha baddaasiyada laga keeni karo inaan bal dhalinyarada wax yar aan ku booriyo ama guud ahaan shacabka Soomaaliyeed hadday joogaan gudaha iyo hadday joogaan dibadda. Tusaale ahaan hadda waddanka dariska Kenya kalluunka laga cuno waxaa laga keenaa Soomaaliya, especially waxaa laga soo qaadaa Kismaayo iyo nawaaxigeeda. Kalluunka lagu cuno Mombasa iyo Nairobi wuxuu ka imaadaa xeebaha dalka Soomaaliya. Ama ganacsatada Soomaaliyeed ha keensato ama ganacsatada Kenyana ha keensato, laakiin Kenya iyadoo bad leh ayay badda Soomaaliya kalluunkeeda isticmaashaa. Kulli waxaan filayaa meeshaas inaad wax kala bixi doontaan. Haddii aan usoo laabto Soomaaliya burburkii kadib dowladihii yaalay ee isbedelayay laga yaabo focuska inay saareen sida ay xilalka ku kala wareegi lahaayeen madaxweyne kasta oo madaxweynaha ka dambeeya suu booskaas ugu qaadan lahaa iyo villa Soomaaliya si loo quruxsan lahaa. Hardanka meeshaas bisuu yaalaa, laakiin laguma fikirin resource-ga dalka in aad iyo aad loogu fikiro. Soomaaliya waxyaabaha maanta la taaban karo ee ugu maarmi lahayd kaalmo shisheeye iyo gacmo shisheeye iyo xoogag shisheeye oo supported siiyo waxay ugu kaaftoomi kareen baddaas weyn Ilaahayna siiyey, dhulkaas beeraha ah Ilaahayna siiyey iyo xoolaha nool. Laakiin nasiib darro wasaarada iska magacaaban ayaa joogo, wasiiro mushaar iska qaata ayaa joogo, shacab la xisaabtamaayo iyo dowlad marka la xisaabtamaysan aysan jirin. Muuqaalkan waxaan codsanayaa horta haddii ay suurtagal tahay inuu gaaro wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda, wasaaradda lagu magacaabo kulan wasiirkeeda garan maayo, asxaabul wasiirna ma ahi, kamana hela baabkaas. Marka haddii aan usoo laabano mawduuceena, dhalinyaro fara badan 1, 2, 3, 100, 200, 1000, 2000 ka badan ayaa shaqo la'aan dalka gudaha ku haysata. Kalluunka hal xabo kalluuna oo 10 kiilo haddii aad soo heshid maalinkaas farxadaada lama qiyaasi karo. Waxaa jiro waxyaabo fara badan oo Soomaalida dilooday. Waxaa ugu weyn in laisku caayo shaqooyinka qaarkood. Haddaad maqaayo tagto ama meel casuumaad lagaa waco ama gurigaaga lagugu sameeyo kalluunka, dabcan dhadhankiisa iyo macaantiisa iyo waxtarkiisa intaba waa la isku dilaa. Laakiin ninka kalluunkaas badda ka soo saaray waa la caayaa. Malaay dabato waaye, kalluumaysato waaye, badgal waaye. Kulley hadda waxyaabo badan oo Soomaalida ay isku caayaan aad uma xasuusto, laakiin dadkaas waa la caayaa calaa kulli xaal.
waxaa kaloo jiro mataqaanaa kalluunkaas in looga faa'iideysan karo siyaalo fara badan. Mathalan markaan leeyahay muuqaalkan dowladda hala gaarsiiyo iyo wasaaradda oo quseeyo, waxaa jirta hadda saa maqlayo wadanka dhowr dowladooda qaarkoodna hub laga soo tuugay, qaarkoodna laga soo iibiyaan maqlaayay. Hubku waa fiican yahay, dalkaa lagu difaacaa, dadkaa lagu difaacaa, diintaa lagu difaacaa haddii loo bareero dhinacaas oo focuska la saaro. Laakiin waxaa suitable maxaan ku dhahayay waxaa sayidkii oo dhan lagu ilaashanayo horta xukun dan daleed iyo dadeed iyo diineed aan danba laga lahayn. Laakiin muhiimaddu ay tahay rag kursigaas wax ku yaqaana inay masaalixdooda ay ku ilaashadaan. Marka waxaan rabaa tusaale ahaan wasaaradda haddii ay 10,000 oo doomaha qaarkooda meeshaan way ku jiraan, videoga waad ku arkaysiin sawiradeeda. Doomo la dhaho small boat fishing aa jira. Small boatkaas ugu yaraan 5 qof ilaa 6 qofooda lagu raaci karaa. Calaa doon haddii 6 qof la saaro oo 10,000 oo doon la helo, hadda wadankan Turkiga la yidhaaha iyo wadamo kaloo qani ahoo dowladdan isku fiican yihiin ayaa jiro. Imaaraadkan xaaraanta oo dalka dhinaca gubaha oo kale. Doomahan sawiradooda idin muuqdo waaye. Doomahan way dheereeyaan, kuwa ka waaweynaa jiro. Waa la heli karaa 10,000 oo doon, 20,000, 100,000 oo doon maanta haddii la raadsho ama deen ha ahaato ama deeq ha ahaato way soo helaysaa dowladda. Deeq iyo deen dowladda way ku keeni kartaa. Ayadoo marka waxyaabihii qurunka ahaayo dalka ragaadiyey meesha laga saarayo, sida maxaan ku yidhahdaaye waxaana yidhahdaan ii sheeg awood qaybsi oo formalihiisu aad u qaldan yahay oo 4.5 la yidhaha ayagoo ka saarayo. Dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan kala sooc lahayn, oon kala heyb ahayn, oo magacooda uu yahay dhalinta Soomaaliyeed, doomahaas inta loo qeybiyo 5, 6 qof loo saaro, baddan lagu sii daayo, calafkiina kala yimaada la yidhaahdo, and then loo sameeyo suuq cusub oo kalluunkaas markay la yimaadaan lagu iibiyo. Talaagadihii maxaan ku dhahayay lagu qaboojin lahaa, lagu keedin lahaa, loogu diyaariyo, lagu investment garay intaasoo dhan. Laga caawiyo international marketka inay kalluunkooda u dhoofsan karaan. Localka loo sameeyo nidaam qurux badan oo delivery ay ku samaystaan. 10,000 oo dhalinyaro, 10,000 oo doon markii aad calaa doon saartid 5 qof ama 6 qof, imisa kun oo dhalinyaro ah oo horta maskaxdooda la bedelay, oo shaqo abuur loo sameeyey, oo ku fikiri lahaa inay ama kooxahan jihaadiidka ah inay galaan ama mataqaanaa bad galaan ama mataqaanaa ii sheeg adiga ilaahay kuma samadiide dad dhacaan. Waa iska ogtihiin wadanka dhacdaan fara badan ka jiro, mobilada iska dhacaa, qaarkood guriyay u dhacaan, qaarkood cadcadooy dadka inta qori ama bastoolad ama muxuu ahay midi ay wax ku waxyeeleeyaan. Waxaasoo dhan maxaa keenaya? Gaajada keenayso, mostly gaajada keenayso. Dadka daraagiska iyo qashinka iyo qurunka wax baraya waxay tahay camal la'aanta. Haddii qofka camal leeyahay ma heli karo waqti oo beerdareeyo, ma heli karo. Laakiin camal la'aanta waxyaabo badan ay mataqaana soo kordhisaa. Marka waxaan idinka codsanayaa muuqaalkan inaad u geysiin wasiirkaas wasaaraddaas joogo, rag iyo dumar wuxuu yahayba anu kule garan maayo. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed fursad ayaa idin banaan, badiina ka faa'iideysta. Kalluun la soo baxa, argoosta la soo baxa, quwadii la soo baxa, waxyaabo fara badan ku jiro. Haddii maxaan ku dhaha dad la helo oo geology ma la yiraahdo cilmigaas kuley ma aqaani ku takhasusay ay jiraan oo kale, in muxuu ahaa ayagana loo sameeyo nidaam iyo maxaan ku dhaha waax ay hoos tagaan
baddaan gunteeda maaluu ilaahay dhigay ayaa dhex yaalo, dadkana waa ka gaajaysan yihiin, way ka baahan yihiin. Marka waxaan ku talin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay fikiraan siday bajaaj u wada iibsadeen, haddana haddii ay waayaan xataa dowlad kaabta oo wax u qabato, inay haddana small boat fisheskaas ay soo gataan, fish equipmentiga ay soo iibsadaan, maxaan ku yidhaahdaa inta wax isku dardarsadaan ay samaystaan suuq, maxaan ku dhahay international iyo localba ka shaqaysan karo hadduu ilaahay idmo. Badda Soomaaliyeed way weyn tahay, marka dhalinyaradaas badda la geliyey waxay kow ka qayb qaadanayaan amniga badda inay sugaan, maxaa yeelay bad dadkii lahaa 24 saac u gaafureegayaan, shaydaan inuu yimaado wax kuma soo ridi karo, wasakh kuma daadi karo, markab dhex socda lama qabsan karo, ma fahamti. Marka dowladda naftirkeeda fursad ay u tahay dhalinyaradaas inay shaqo abuur u sameeyaan, badda lagu yaaciyo. Soomaali meesha cirif ka cirif laga xamaasho, lagu shaqaysto, laga shaqaysto baddaas yaa loo baahan yahay. Marka hadduu ilaahay qadaro waxaan rajaynayaa idinkana inaa fahamtiin, wax kala baxdiin, muuqaalada hala share gareeyo, hala qurxiyo, meel hala gaarsiiyo, guruubyada iyo meelaha la geeyo la sheegay geeya. waa mahadsantihiin beryahan dambe maasha Allah ha tihiin si fiican u soo kaciseen mataqaanaa subscribe-tiina iyo daawashadiina maasha Allah waa loo mahadiyaa jawiga jooro waaye marka insha Allah raxmaan waxaan ka codsanayaa in la dadaalo kalluunkaas haddii marka la soo qaado dhowr nooc loo kala saaro kuwa waaweyn kuwa yaryar iyo kuwa kale ka sii yaryar waaye waa kala fiican yahay waa kala magac leeyahay beri dhaweeto waxaan ka akhrinayay journal kalluun halkiisii xabo waxay dhaheen 13 milyan miyaa maqan la siiyey anuu maqan wuxuu ka samaysan yahay marka badan ilaahay nicmo ku dhex jirto nicmo fara badan dhex taalo laakiin dadkii ka soo saaran lahaa ilaahay naga dhigo waa u jeedaan Ethiopian inuu hadda maraakiib iyo doomo iyo qashin iyo baqti oo soo sameeyay bad ma qabo inta uu soo wataa badda Soomaaliyeed dhalinyarada laheeda ka hurudi ka jiifto badan maalin walba intaas oo $100,000 ayaa laga soo saari karaa marka qaadkan dibadaha laga soo dhoofinayo qashinka qurunka inta la iska daayo in adeerayaalo badan hal laga soo macaasho hal lagu noolaado ilmaha waxa laga baro guriga ka dhista ma fahamteen marka mashaariicdii kalena insha Allah meeshooda ka wadeena waa mahadsantihiin assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh